dadka hadda jooga qaranka wax kuma darsanin tuugo u joogta inay wax dhacaan marin habaabiyaan ummadda qaybiyaan inay yihiin aan aaminsanahay. madaxweynihii hore ee dowladda Soomaaliya haddana ka mid ah xubnaha mucaaradka kuwooda ugu afka dheer ayaa weerar afka ku qaaday dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh isagoo oo ku tilmaamay yey baahan oo dalka la wareegtay isla markaana aan waxba ku darsan dalka balse ay yihiin koox faa'iido doon ah. cod sir ah oo laga helay Sheekh Shariif ayuu ku sheegay in kooxda hadda xukunka haysa uu ka aaminsan yahay maafiyo ama tuuga dalka iyo dadka boobaysa isagoo oo uga digay bulshada Soomaaliyeed inaanay qayb ka noqon dadka la dhacsan maamulkooda. madaxweynihii hore ee dowladdii ku meel gaarka ahayd Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa si weyn uga carooday ficilada dowladda hadda jirta isagoo oo si weyn u muujiyey sida uu uga xun yahay falalka dowladdu ay ku kacday tan iyo intii ay xukunka dalka la wareegtay. dowladda dhexe ayaa si weyn dagaal adag ula gashay saamileyda siyaasadeed ee ay ugu horeeyaan madaxda mucaaradka iyo kuwa dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland. mucaaradka dowladda ayaana si weyn u diidan tallaabooyinka ay qaadayso maamulka xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh iyagoo oo ku dhaliilay falal kalitarisnimo. tan iyo markii uu xukunka dalka la wareegay madaxweynaha hadda talada hayo ku dhow muddo 4 sano ah ayay mucaaradka iyo maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland kaga soo horjeedeen isla markaana ku diidanayeen aragtiyada iyo tillaabooyinka ay qaadayso xukuumadda dowladda federaalka Soomaaliya uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra'iisul wasaare Xamse. dadka hadda jooga qaranka wax kuma darsanin tuugo u joogta inay wax dhacaan marin habaabiyaan ummadda qaybiyaan inay yihiin aan aaminsanahay. annaga falilaahi alxamdu dalkan waxaan ku soo darsanay ayadoo lees dhacayo lees dilaayo lees xiranayo aan soo bilaabnay. ilaaha nagu guuleeyey Ethiopiana yimiday waxaan u qaadanay shaatigaan u gashanay. ilaahay wuxuu nagu guuleeyey inaan ka saarno shabaabaa yimiday waxaan ka saarnay meesha dowladnimadii aan salka u dhignay doorashaan qabanay waa nagala adkaaday annagoo kelmad dhihinaan bixinay. maxay ku darsadeen dalka waayaan waa inay ku tuumaan annaga dad Soomaaliyeed oo siyaasadooda ka bilaabay deegaanada ay ku dhasheen waana la yaqaanaa saameyn cid nagu leh oo aan Soomaali ahayn ma jirto. waxaan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed iyagoo wada jiray guul gaari karaan qolo kale oo guul gaari karta ma jirto. marka dee taariikhda in baan laga sheega ma aha. dadka hadda jooga qaranka wax kuma darsanin tuugo u joogta inay wax dhacaan marin habaabiyaan ummadda qaybiyaan inay yihiin aan aaminsanahay. annaga falilaahi alxamdu dalkan waxaan ku soo darsanay ayadoo lees dhacayo lees dilaayo lees xiranayo aan soo bilaabnay. ilaaha nagu guuleeyey Ethiopiana yimiday waxaan u qaadanay shaatigaan u gashanay. ilaahay wuxuu nagu guuleeyey inaan ka saarno shabaabaa yimiday waxaan ka saarnay meesha dowladnimadii aan salka u dhignay doorashaan qabanay waa nagala adkaaday annagoo kelmad dhihinaan bixinay. maxay ku darsadeen dalka waxay ku darsadeen lama arko. ummadii qaybiyaan waxay ka shaqeeyeen corruption ummadii kala geeyeen. marka Cabdiqaadir waxaan rajaynayaa hadallada caatifada ku dhisan oo aan xaqada ku dhisnayn oo beenta ah oo propagandada ina ka hartid waa mahadsantihiin.